هلاقي عيدن كي حبشيدا نجاشي حبشيدا ayaa ciidan uu hormuud ka yahay Abraha u diray in ay qabtaan Yaman. Abraha markuu la wareegay gacan ku dhigista Yaman ayuu magaalada Sanca ka dhisay kaniisad weyn oo aan iyadoo kale xilligaas lagu arag dhul ay Carabi degto. Abraha markii uu dhameystiray dhismaha kaniisadii weyneed ayuu dhambaal u qoray najaashiga xabashida wuxuuna qoraal ugu sheegay waxaan ku dhisay kaniisad muunad leh oo aan iyadoo oo kale boqor ka horeeyay ebid loo dhisin. Intaa wuxuu raaciyay waxaan doonayaa uguna talagalay kaniisadan in ay Carabta u soo xajiso halkii ay Kacbada uga xajin lahaayeen. nin u dhashay qabiilka reer Kinaana ayaa markuu hadalkaas soo gaaray aad uga gubtay oo caro la qarxay una arkay xaniya taabad intuu kaniisadii yimid oo gudaha u galay xilli aysan cidna joogin buu ku dhex saxarooday oo waliba darbiyada ku riiqriiqay markii Abraha loo sheegay arinkaas ayuu isagana aad u carooday oo uu ku dhaartay inuu Kacbada dumin doono. Abraha wuxuu diyaariyay ciidan tiro iyo tayo leh tiradoodana ay gaarayso 60,000 oo dagaalyahan. ciidanka waxaa la socday maroodiyaal dagaalka u carbisan carabtuna xilligaas maroodi maba aysan aqoon waxay taariikhyahanada qaarkood sheegeen in madaxa maroodiyada magaciisa la oran jiray Maxamuud